wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland Maxamed Daahir Axmed maamulka gobolka iyo ka degmada Gabiley ayaa maanta kulan la qaatay 70 maamulo oo kamid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe ee gobolkaasi Gabiley. Kulankani oo ahaa mid lagu dardargelinayo waxbarashada dugsiyada hoose iyo dhexe ee dawladdu maamusho ayaa sidoo kale waxa dawladda hoose ee Gabiley ay ku soo bandhigtay qorshe horumarineed oo 70 dugsi maamulkooda iyo shaqaale hoosaadkooda ay bixin doonto gunooyinkooda. Maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi kulankaasi ugu horeyn ka hadlay ayaa sheegay in sanadka 2019 dawladda hoose qorshaheeda ku dartay inay qaadato mas'uuliyadda 73 shaqaale hoosaad ah iyo 70 maamulo oo bil walba ay gunna ahaan u siin doonto lacag dhan $50. ujeedada kulankan sida aynu ka hadalnay waxa weeye xoojinta iyo tayeynta waxbarashada hoose dhexe ee gobolka. dawladda hoose sanadka 2019 waxa qorshaha ku darsatay inay iyadu mas'uuliyadda qaadato dhammaan shaqaale hoosaadka iyo sidoo kale gunnada la siinayo maamulayaasha si jiritaanka aynu mashruucan iyo waxaynu doonano iyo waaritaankiisu inoogu adkaado 73 shaqaale hoosaadka iyo gunno $50 oo maamulo kasta la siinayo 77 bil walba labadaaba inay dawladda hoose mas'uuliyaddeeda qaadato. barasaabka gobolka Gabiley Maxamed Ismaan Axmed Indabala oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maamulayaasha iyo shaqaale hoosaadka dugsiyadani ay dhiirigelin u tahay gunnada golaha deegaanku ay u qoreen waxaanu maamulayaasha dugsiyada ku booriyay inay yihiin halbowlihii waxbarashada. mar waxa idin tahay isbarasho marna waxa idin tahay dhiirigelin shaqadii qaranka iyo gobolkaba u hayseen 77 naas waxa tihiin halbowlihii dhaqaajinayay waxbarashada gobolka. wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland mudane Maxamed Daahir Axmed oo kulankaasi soo xidhay ayaa sheegay in wasaaraddu ku bogaadinayso qorshahani ay dawladda hoose soo bandhigtay. mudane Maxamed Daahir Axmed wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland waxa kale oo uu sheegay in mashruucani yahay mid lagu tayeynayo waxbarashada aasaasiga ah isla markaana tayeynta waxbarashadu tahay mid ka dhaxaysa dawladda hoose iyo dawladda dhexe. horumarinta cilmiguna amba tayeynta waxbarashaduna waa mid ka dhaxaysa dawladda dhexe wasaaradda waxbarashada iyo sayniska dawladaha hoose iyo bulshada guud ahaanba oo inuu si guud uga wada shaqeynano waxa looga baahan yahay maamulaha inuu ka qayb qaato enrollmentiga amba ardaydu inay iskuuladii isqorto oo waxbarashadii ka qayb qaadato. Sikriye Nuux Ibrahim codka bariga Afrika gobolka Gabiley.